sawirkan mucjisada ah ee idiin muuqda waa gaalkii weynaa ee lagu magacaabo Fircoon oo dhintay qarniyo ka hor. Gaalkan oo ahaa gaalkii sheegtay ilaahnimada oo yiri ana rabbukumul a'la, ani waxaan ahay Allah. hase yeeshee waana badan iyo juhdi badan ay geliyeen nabiga Allah uu u soo diray uu iska biyadiiday. wax badan la waaniyay mucjisooyin badan la tusay waa uu diiday madax adeega awgeed. madax adeega marka la soo qaadanayna waa qofka ugu horeeya ee madax adeegaysi uu yahay mid aad u halis ah. hase yeeshee ugu dambeyntii ku halaagsamay badda oo halkaasi uu ku qarqamay asiga iyo wixii la socday oo dhan halkaasi ay ku halaagsameen. hase yeeshee sawirkiisa baaqi ayuu ahaanayaa ilaa iyo dunida ay ka dhamaanayso. Allah ayaa quraankiisa hore ugu sheegay oo yiri dadka ayaa mucjiso loogu dhigayaa Fircoon. sawirkiisa haatan idiin muuqda waa asiga oo ku jiro goob lagu xanaaneeyay ama lagu xifdiyay dalka Masar ayuuna yaalaa. dad badan ayaa u soo daawasho tago oo sawirkiisa mucjisada ah sida wili uusan isku bedelin xilliga qarniyada aadka u fog ee ka soo wareegatay iyo sida uu yahay. waxaa jiray nin doctor ah oo haystay diimooyin kala duwan, hase yeeshee yimaaday dalka Masar mucjisadaasna aad ula yaabay, dhiigna dalbaday inuu ka qaado oo dhiig fresh ayaa ka soo baxay. kadib ayuu halkii ku islaamay doctorkii caanka ahaa. waxa uu la yaabay qof intaas qarni ka hor dhintay misna dhiigiisu uu yahay mid fresh ah oo laga soo miiray oo la fiiriyay tijaabooyin badan maray. dadyo kala duwan ayaa sawirro ka qaatay ayagoo aad u la yaaban mucjisadan iyo sababta uu isku bedelay leeyahay. laakiin Allah ayaa arintaasi hore u sheegay oo yiri ma isbedelaya Fircoon oo waa dadka ayaa mucjiso looga dhigay si ay ugu qoos qaataan ruux walba oo kibir iyo isla weynin iyo waxyaalo la ahayna bulshada ku dhaxaayo. waa qarniyo ka hor ayuu ahaa sawirkan. waxaan idinkaga sameyn doonaa barnaamijyooyin dhowr ah oo ku saabsan qisadii ugu weyneed ah qisooyinka ayaan idiin soo qaadi doonaa. halkan ayaan idinkaga socodsiin doonaa dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena bahda ku xiran Dooxa Media Channel. ahaantiinba waxaa idiin leeyahay haatan waxaan isla soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii isla barnaamijka haatan aan halkan idinka soo tabinayay. waxaa idiin leeyahay inta aan ku kulmi doono barnaamij aynkan oo kale waxaa idiin leeyahay inta ku cusub halkan subscribe si aad barnaamijyada ula socotaan, like tana saar, share, comment intaba si aad asxaabtiina kale in halkan ka maqan ay u sii gaaraan isla markaasna ay ugu faa'iideystaan barnaamijyada aan halkan ku soo diyaarino oo ah qisooyin dhacdooyin cajiib ah oo dunida inteeda kale ka dhacay. barnaamijyooyin badan oo halkan aan idinku soo gudbino si ay ula socdaan barnaamijyadaasi. waxaa idiin leenahay in gabalaalkana furto insha Allah. aad iyo aad ayaad ii salaaminayaan.